بسم الله. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسيgan ugu dambeeya waxaan ku talagalnay inaan dhalinyarada uu ku wajahnaado wuxuu ku saabsiisan yahay dhalinta iyo cilmiga ama taxadiga cilmiga ee waddankan ka jira. dhalinyaranimadu waa wakhtiga nolosha ugu fiican ee qofku uu haysto. waa wakhtiga uu qofku wakhtigiisoo dhan isagu leeyahay. qofku markuu sii weynaadaba waxyaabaha ku xidhan iyo bii'ada ku xeeran iyo mashquulka ku xeeran baa sii bata. laakiin markuu dhallinyarada yahay waa wakhti uu korayo caqli ahaan, jidh ahaan, aqoon ahaan, garaad ahaan, si walba xagga koritaanku u socda. waa wakhti runtii u baahan in si fiican looga faa'iidaysto. waa wakhtigaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamayo الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إلهي سبحانه وتعالى بايدنا أبو ريبا الليلي إنه ضعف كسوغن دبتنا أود بينسيه كدبا هدنا ضعف دنبا وقفكو نقنيا. dhalinyaranimadu waa wakhti muhim oo u baahan in si gaara looga faa'iideeyo. walidalik ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa aakhiro su'aalaha dadka la weydiinayo 4 su'aalood baa jira oo qofku aanu ilaahay ka hor dhaqaaqaynin qof waliba inuu ka jawaabo mooyaane. 4taas su'aalood 2 ka midi cimrigay ku saabsiisan yihiin. qofku wixii uu wakhtigii uu noolaa muxuu ku qabtay cumrigiisii. haddana su'aal gaaraa sii jirto ku saabsan dhallinyaranimada. wa can shabaabihi fiima ablaah, dhallinyaranimadiisii qofku muxuu ku bixiyey. haddaba wakhtigani waa wakhti aada u muhim oo u baahan yahay dadka dhallinyarada inay si fiican uga faa'iidaystaan. dhallinyaraduna waa mustaqbalka ummadda. ummad walba dhalinteedu siday u eg tahay ayuu mustaqbalka sugayaana u egyahay inta badan. waa waxa isku xidha baynu leenahay awowyada iyo aabbayaasha iyo mustaqbalka dambe soo socda. waxaanan ka warramaynaana waxa weeyaan dhulkan aynu joogno iyo sidii wax loo baran lahaa. culamada muslimiintaaba waxay yidhaahdaan war haddaad adduun doonayso bay yidhahdeen, adduunyo haddaad doonayso waxbaro facalayka bilcilm. aakhire haddaad doonaysana facalayka bilcilm. aakhiriya adduunba markaa waxaa lagu helaa waa aqoon. qofkii adduunyo doonaya waxbaraa la yidhi, qofkii aakhire doonayaana waxbaraa la yidhi. haddaba innagu ka mujtamac ahaan waxaynu noollay innagoo ku dhex nool mujtamac kaloo inaga badan oo aynu la degnay. waxaynu nahay waxay iyagu u yaqaaniin minority groupskaynu ka midnay, alaqaliyaat, dadka laga tirada badan yahay. dadka laga tirada badan yahay marka la yidhaahdo macnaheedu waxa weeyaan dadka badan ee waddan kasta degan ayaa ah dadka go'aamiya ee uu ku socdo aragtidooda thaqaafadda iyo culjarka waddankuu leeyahay, nidaamka tacliimiga ee waddankuu leeyahay, qaanuunka waddankuu leeyahay. dadka badan baa go'aamiya. waana masale caadiya. waddan kastoo aad tagto majority rules isagaa xukuma majoritygu. dabeetana wuxuu qaabka loo fakerayo ummaddu ay u fakerayso isagaa u dhiga. culjarka iyo thaqaafadda iyo dhaqanka yeelanayaan isagaa dejiya. mu'asasaadka tacliimiga iyo qaabka waxbarasho isagaa dejiya. qaanuunka lagu dhaqmayo isagaa dejiya.
minority groupsku marka dadka yari ee minority waddan ku ahi inta badan laba mid unbaa ku dhacda qayb assimilation qayb milanta dawabaan uu ku dhaco oo mainstreamka xagga loo badan yahay iska raacda hadday dhaqantay hadday aftahay hadday diintay hadday culturetay hadday waxbarashatay xagga loo badan yahay ku biira kaasi markaa waa la mila iyo qayb isku dayda inay lana noolaato wixeedana la yeelato haysato waxay rabaan inay mujtamacna ka mid noqdaan waxay kaloo rabaan identitygooda inay ilaashadaan afkooda dhaqankooda diintooda waxay lahaayeen ay gaarka u lahaayeenna inay ilaashadaan mujtamaca ay la noolyihiinna inay la noolaadaan ninka dhallinyaradii markaa ee ummadda kan jooga aabbaha adiga wuxuu yimi isagoo aan waddankan thaqaafadiisa iyo dhaqankiisa aqoon isagoo cabsi qaba dabeetana wuu ku koriyey isagoo baqayo isla talow muxuu noqon doonaa ilmaha kani suu soo bixi doonaa dadka culturekooda si fiican u garanaynin afkooda si wanaagsan u garanaynin dhalintasi halkan ama ku kortay ama ku dhalatay waa dadkan dhaqankooda iyo afkooda iyo wuxoodaba garanaya haddaba idinkaa ah dadkii isku xidhi lahaa culturekoodii iyo dhaqankoodii waalidkaa wuxuu doonayay inaad satisfy garayso bulshadan inaad la noolaataana inay suurtagal noqoto waalidka iyo wixii uu raadcaynayay inaad samayn kartid bulshadan inaad ka mid noqoto la noolaatidna inay suurtagaltay waxaa taa suurto gelin kara baan leenahay inaad fahamto qiimat alcilm adiga xamaal lagaagama fadhiyo aabbahaabaa xamaal ahaa oo tagsiila ahaa oo manbawar ahaa oo dadka wax lagu dhista ahaa adiga lagaagama fadhiyo xamaalkii lagaagamana fadhiyo inaad milanto waxaa lagaa rabaa inaad dadka wax la qaybsatid dadka waddanka deggan ee wax ku baray aqoon inaad wax la qaybsatid dhanka kalena waxaa lagaa rabaa inaad diintaadii iyo dhaqankaagii iyo afkaagii haysatid say taasi ku dhacaysaa waxay ku dhacaysaa oo keliya bilcilm aakhiradaadana cilmaa ilaalin kara adduunkaagana cilmi baa ilaalin kara aakhiradaadana cilmaa ilaalin kara adduunkana cilmaa ilaalin kara guud ahaan qur'aanku ama diinta aynu rumaysannay waxay tilmaamaysaa cilmiga iyo ahmiyadda uu nolosha u leeyahy walidaalika baa ilaahay subxaanahu wa tacaala aadam calayhi salaam markii dunida tan la keenaya ilaahay wuxuu cilmaa la soo siiyey aadan tajaarib ka horrayso bini aadami dee ma jirto haddaba si uu nolosha tajribadeeda u bilaabo ilaahay aqoon buu soo siiyey wacallama aadama alasmaa'a kullaha ثuma acradahum cala almalaa'ika faqaala anbi'uunii biasmaa'i haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin qaluu laa cilma lana ila ma callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim aqoon baa la soo siiyey uu nolosha ku bilaabo si nolosha ay u suurto gasho diinteenna markaynu eegno nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay maku ka soo saaray maka iyo inta ku xeerani waa dhul jahligu yaallay aqooni ma jirin thaqaafa ma ool philosophy ma jirin waxba kama jirin waa midda kale system ma oolin caqaa'idu sanamo la caabudaa bay ahayd dulmi ijtimaaciyo tiro badan baa jiray haddana qur-aankii ugu horreeyey ee ilaahay u waxyoodo waxyaabaa tilmaamaya qur-aankani inuu alle ka yimi aanu bashar ka imanin waxa uu ka warramay cilmiga iyo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadariyey qalinka iyo wax qoristaa lagaga warramaya waa waxaanay carabi dhaqan u lahayn ayaa qur-aankii koowaad yacni hadduu war bini aadam yahay
dee wuxuu is odhan lahaa waxaan taagan wax ka qabo cadaaladda ha la ilaaliyo ama dulmiga ha la joojiyo ama qadaayaadka hortiisa yaalla wax ka miduu bini aadamku ku fakeri lahaa laakiin maadaama rabu samaawaat uu waxyigan soo dejiyey ilaahay wuxuu ka bilaabay iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam shantii aayadoodii ugu horreeyey qur-aanka soo degay waxa ay ka warramayaan wax akhrin wax qorid iyo cilmi wax akhrin iqra bismi rabbik iyo wax qorid callama bilqalam iyo cilmi callama alinsaana maa lam yaclam taasi waxay tilmaamaysaa waxyiga cilmi ku bilaabmay sida uu ahmiyad u siinaya cilmiga waxay kaloo culimmadu yidhaahdaan haddana afartii gooree waxyigu soo degay ugu horreeyey laba ka mida masaladan ahaa waxay yidhaahdaan afarta qaybooda qur-aanka ugu soo hordegay waa iqra qaybteeda hore iyo mudathir qaybteeda hore iyo muzammil qaybteeda hore iyo nuun qaybteeda hore weeyaan inta qur-aanka ugu soo hordegtay suuratu nuun ma labaad baa ma saddexaad baa ma afraad baa aqwaal baa jira fi cilmi tafsiir mahmaa takun waxay ka mid tahay una afartii qaybooda ugu horreeyey qur-aan ee soo dega idan mar labaad baa ilaahay haddana wuxuu leeyahay nuun waalqalami wamaa yasturuun ilaahay wuxuu ku dhaaranayaa qalinka iyo waxa uu la qoro waxay tilmaamaysaa dadka muslimiinta saa loogu tilmaamayo waxbarashada ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi maxamed waa u gallad sheegtay manna sheegasho gallad sheegasho waxa uu siiye nicmo ah markii la gallad sheeganaya ilaahay wuxuu yidhi وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إلهي وحكو سود جيبا ليلي كتاب يا حكمة وعلمك ما لم تكن تعلم با إلهي وحن ربك بري وحانا دوغين وحانا قرنين أي ربك بري با إلهي سبحانه وتعالى ilaahay fadliga iyo dheeraadka uu ku siiyeyna aad buu u weyn yahay baa rabbi tilmaamaya sidaa ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ziyaado waxaa la yidhi waxaad ka dalbataa masalada cilmiga waqul rabbi zidnii cilman ilaahayo waxaad ii biirisaa ii kordhisaa dheh aqoon in alla kuu kordhiyo aqoontu markaa waa aqoonta ama adduunka wax tarta aakhirana wax tarta saasi daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam salaad kasta markuu tukado subax salaada subax markuu salaamu calaykum yidhaahdo wardigii uu nebigu akhriyi jiray waxaa ka mid ah xadiidka sheekh alalbaani xasanu saxiixa ku tilmaamayo imaamu axmed iyo ibnu maaja ay soo saareen اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا الفاظ يدو يسوي إذا سمع حدث صار إلهي وحن كويدي سنة إياه علم نافعة علم واحتره يا عمل آدق بشه يا الرزق حلاله في عن وبريوك النبي محمد عليه الصلاة والسلام دعادي سيكوشرت وصلاة الصبح كبحه waxyaabaha uu koowaade uu ku ducaysanayay bay ka mid ahayd xadiiskaas imaamu muslim uu warinayo waxaa kaloo uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabuu ilaahay ka magan geli jiray inay ka mid ahayd allahuma innii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakhshac wa min